السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Seenab waa gabadhii Denmark laga keenay ee Burco la keenay ee 9 sanadood lagu silcinay Burco. Haanana aniga ayaa la hadlay haanime aqoon waxaan ahay waxaan gudo tooniya nool iyo in kale ma aqoon aniga ayaa haana la hadlay haana markaan la hadlay aniga carabteeda la soo cararay aniga kala in silcid raxmadi dad waxa la arki jiray dad cadow ka qaxa anaga dadkii ilaahayna badan ka qaxnay wax wala waa qadar Allah markaan ka qaxnay anaga nimi haani Soomaali weyn khayr Allah siiyo waxaan uga soo urursan lacag $3,000 way noo soo dirtay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. channel كيغا ميل كستو أدونك أكو جوجتين waxaan rajeynayaa khayr caafimaad farxad bashbash iyo barwaaqina ku noolaatiin insha Allah. intii xanuunsan ilaahay caafimaad tamaam siiyo inta caafimaad qabtan ilaahay caafimaadka u siiyay. sida hordhac barnaamijka ku arkayseen barnaamijka aan ka hadli rabo maanta wuxuu ku saabsan yahay qof gabar aan muddo in aan ka gagabanay inaan la hadlo ama aan ka hadlo barnaamijkeeda sababtu waxay tahay aniga inta badan ma jeclib inaan qof waxaan xaqiiqdiisa la ogeyn wuxuu anyway waxa fiican horta mar walba in xaqiiqda laga hadlo marka hadlaysidna adigoo qof weyn ina u hadashid ma ahan af baaq waa hadli karaa waa hadlaya ma ahan waxa fiican si ilaahay ka cabsi leh oo wax walba xaqiiqada ay tahay ina u hadashid wax walba horta xaqiiqo iyo runta waxay tahay Allah subhanahu wa ta'ala mar walba nagu og aniga bini aadan aan waxna ma wada ogaan karno wixii aragna isheena qabato ba arki karnaa isheena inta badan ama dhagteen waxa ku soo dhacayo hadallo badan isbedelo badan oo fara badan cadaymo fara badan wixii ka xaqiiqa ilaahay og wixii ka run beenna ilaahay og laakiinse cadaymo fara badan iyo hadallo badan iyo waxyaabo badan oo tuhun fara badan jiro oo ku saabsan Hana Abuukar Hana Abuukar horta waa gabar Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool inkastoo hadda Soomaaliya muddisho joogto haddana meesha ku noosha waa qurbaha mid horta waxa la dhihi jiray Hana waa uga mahad celiyaa mar walba dadka masaakiinta iyo say u garab istaagi jirtay oo u garab taagneed mar walba ugu soo hadli jirtay barnaamijyadeena ku taxnaan jiray laakiin Soomaalida waxay dhahdaa qof hadduu ku dhaho qof haddii hal mar uu qof ku dhaho qofkan wuu xun yahay hadduu ku dhahay halkaas qof la ku ekaanay haddaadan xumeyn laakiin 2 3 4 hadda isku ka raacdo Soomaalida inta badan been isku raacaan dad badan oo Hana waxa jiro ka soo hadlay xaqiiqooyin keenay ilmay naga qaadatay ilmay naga wareejisay ilmay halkaas naga geysay bulsho badan oo community badan oo bishaan dhan iyo waliba 2 bilood u dambeysay waxa socoto Hana dacwadeeda iyo ka hadalkeeda baraha bulshada horta marka hore hadii la isweydiyo gabadhaas waa gabar Soomaaliyeed qurbaha ku nooshahay hadday shaqeyso waa shaqeysaa hadday shaqeyn kartaa waa qof joogo qurbaha oo dhalinyaro inta badan way shaqeysan kartaa way shaqeysaa waxa ku soo hartay ceerna way qaadataa labo YouTube-na way isticmaashaa baraha bulshada YouTube way isticmaashaa Facebook way isticmaashaa waxyaabo badan oo gabadhaas social media qaybihiisa badan kala duwan way isticmaashaa YouTube bay leedahay oo marayo 52,000 subscribe ah Facebook bay isticmaasho aad looga yaqaanaa Snapchat-keeda waa aqaanaa way arkay iyadoo marar badan ka isticmaalayso soo marka qof shaqeysto oo waqtigiisaba inta badan shaqo ku maqan oo la og yahay soo qurbaha wadanka qurbaha xiriir u yahay waqtiyada soo qadar u yihiin adoo Soomaaliya joogtado maxaa lahaa lagu kaalmeeyo wax walba lagu qabanayaa laga yaabaa in waqti u dhamaad aad ogeyn waxa su'aal marka Hana sidee maalin kasteeto wadan u tagtaa waxa arkaysaa maanta meel bay joogtaa biri meel kale joogtaa birda meel kale joogtaa ka soo qad markay dalxiis ama dad baysan fur sameynta dhahno lacagta soo gasho xagee ka soo gashaa waxa inta soo dal ku marayso fiisayaasha inta soo wadan ay ku marayso tigidhada inta soo wadan ay ku marayso inta soo dalxiis inta soo travel isku soo gudbayso maxay ka dan leedahay maxay ka sameyntaa dad badan waxay jid ka caawiyo social media wada isticmaalayna soo fadhiistaan dadku wax weydiiyaan qofkan hala soo caawiyo qofkan halsan hala soo yeelay dhahan telefoonna lagula hadlaa dadka lagula xiriiriyaa marka maxaa ku ayada marka ay uga duwan tahay dadka kaleeto lacagta intaas ay ku maris travel ma ayada iska bixiso su'aashaas waxay u baahan tahay in ayada ka jawaabto mise qola kala fangareynayso haddii ayada iska bixiso maxay tahay marka danta ugu jirto inay hal bil gudaheeda ay ku soo marto adduunka kala bar maxay faa'iidada ay ka helayso maxaa waaye so marka
ayada markasta oo aan arkay hadda ay ka hadlayso hadalladan intii warka la isla dhexwaday eedo youtube-keeda facebook-keeda live uga jirta arkay youtube-keeda live uga jirta arkay kaliya waxay ku koobtaa warka dhan ilaahay baa idinku daayo way fiican tahay qof kasta oo ku dulmo ilaahay in lagu daayo laakiinse waxaa xaqiiqa runta ah inaa mar walba aad runta sheegtid hadaa qof beri aad tahay inaad runta iska sheegtid oo dhahdid waxaas aniga beri baa ka ahay waxaas ma ku jiro dadka inaad qancisid rabaan hadda haddaa gurigaaga joogtid oo lagu aqoono social media aad soo gelin qofku soo raadsanaysa ku dhahayso kaal hebel xagoo aada ama heblaay xagee aada ma jirto laakiin haddaa mar social media ku jirto farna ay kusoo gasho duhun kusoo kale ama wax lagaa sheego waxaa fiican bulshada kugu xiran dadkii aa u shaqaynaysay oo toonfal haddaa u sameynaysay waxaa dhan inaa inta qancisid meel soo fadhiistada tirahdid saan iyo saan iyo saan ay wax u jiraan saan iyo saan iyo saana wax ay leeyihiin waxaana sameeyey ama waxaana caddaynaa haystaa waa waa been ama intaana waxaa haystaa wixii lagu sameeyey waa run oo dembigaaga aqritid laakiin dembina ma qaranaysid dadkan waxaa jawaab uga dhigaysaa ilaahay baan igu daayay ilaahay ku daaya qof kastoo ku dulmo laakiin si dulma ilaahay ku daynta ma ahan in adiga inta la aamusid maalinba maalin ka dambaysa ay soo taraan wararkaada sheegay inaa wax samaysay inaa wax qaadatid inaa ilmo duufatid inaa ilmo islaamgaala u dhigtid inaa ilmaha wax horta ka samaysid ka daranta videoga hordhaca kusoo aragteen haddana aan tusi doono waa gabar waa hooyo Soomaaliyeed oo ka hadlayso inay ayada gabadhaas caawisay lacag siisay ee gabar fiican tahay gabadhaas hadalkeeda markii la fiiriyo ma la isdhihi karaa waa gabar ee ayada soo adeegsatay wax kasta waa dhihi karnaa sababto hadalladeeda si u hadlaysay iyo si u dhahaysay waxaa ka dareemi kartaa inuu ku jiro hashkad fara badan iyo inuu maxaa dhihi jiro qof la yiri saas iyo dheh camal ay tahay haddaysan ahayn oo sida ilaahay ku ogyahay ay tahay dad intaas ka tira badan maxaa loo heli waayay oo Soomaali ah oo ku soo sheego sababto waxaa lagu hayaa ilmo Soomaali meel burco qoys dhan aan dhahayn 9 bilood ee ilmaha naga maqan tahay ilmaha naga geysay kana yeeshay dibadda meel walba laga soo hadlayaa meel dal iyo dibad meel walba lagu soo dacweynaya oo laga soo sheegay soo marka sama fiicneen marka ina dad intaas ka tira badan taageerad iska tira badan dadkii lacagta ka aruurinaysay wixii aad soo sheegaysay dadkii aad samafalku u sameynaysay inay kurta soo hadlaan dhahan gabadhan waa laga qaldan yahay ayadu wax dambi ah ma lahan dambiga waa lagu nabayaa saysa ku dhici kartaa qof ha ku dulmo labana ha ku dulanto saddex ha ku dulanto aan ku badiyo laakiin dad ka badan boqolaal Soomaali ah oo meel isugu timid oo meel isugu imaanay qof walba meel u joogo inuu inta adag ku soo fadhiisto oo dhaho gabadhaas sayto aan dulmana kala mid ba dulankaada u heshiinayo adigu soo qof Soomaali matid soo gabar Soomaaliyeed matid soo qof dadka ka dhalatay matid maxay tahay cadaawada qaaska oo lagu qabo oo keeni karto inay ummadii dhan inta ku heshiiso adiga ee beenkaas oo abaabulaan tamirba waxa la lafba ku jirto waxa fiican marka hadlaysid oo adigana aad tahay qof weyn oo mas'uul ah qof war soo gashay oo wax laga sheegay aad tahay in inta soo fadhiisid furcadi karti aan wala soo fadhiistay tiraahid saas isaan u jiraan isaan wax yihiin natin aniga waxaas bari baa ka ah oo cadeymaheeda liba akeentay intuu si taabsiya adduunka la dhaamaho ina cadeymaheeda keentid iska bariyashid wixii lagu sheegay iyo wixii lagu tuhmay haddii aan wax u qaadanaynaa waxa jiro inay tahay run marka please dadka islaameed oo dhibaatada u geysay waxa lagu ilmaha lagu tuhmayo cadeentooda iska keen aynan ahayn dadka hadda ka dhaafay dhibaatada ma garan karo meel ka keeni kadib intaas oo lacag ah ana su'aasha aydan ii taagan isweydiiska u mudana bixitaab intaas oo lacag ma sha Allah lacag leeyahay baa taab ka soo qaad adiga qof lacag leh oo meesha doonto bari kartaa laakiin imagine qiyaas adiga qof walba dadku badawin ma ahan dadku jaahiliin ma ahan qof walba aqli buu leeyahay fahmi kara intaas oo aad travel ku martid lacagta ku bixinaysid faa'iidada ina faa'iido ka heshid al waxaas ganacsato ma tahay waxaa jirto cadeynteeda iska keen waxaa jirto hay'ad adiga ku caawiso oo ka bixiso tigidhada iyo fiisayaasha wadamada adduunka oo dhan ku maraysa sababta wadan waa tii ka tala waa tii ka ilaa 10 wadan waa tii ka tala wadan kasto maanta ina magaalo kugu aragno bir magaalo kale ku arbirda magaalo kale kugu aragno naftirkeedu tuhun iyo shaki badan bay keenaysaa taas marka la yahay kaliya adiga kaliya ma ahan dad badan oo waxaan jiro Soomaali ah oo samafal sameeyo intaas oo madan ay tageen iska afi hal tuulo ay tageen oo soo booqdeen ama ay aadeen oo dhahan samafalan ku soo sameeyna ama dadkii wax ku soo qabanayna soo fiirinayna ma jidho adiga marka waxa kaliya kugu go'an oo kugu xiran sirta ka dambaysa safaradaada inaad cadeysid waa muhiim sirta ka dambaysa tuhunada ku soo kale inaad cadeysid waa muhiim kaliya aad ku ekaanin dadka inaad dhahdid waa idin habar iyo Ilaahay baan igu daayay inay soo dhahdid maahan waxa kale oo jirto bariyahan dambeeto adiga sidii lagu sheegay am kasi horba waxa soo badanayo ilmaha Soomaaliyeed oo la xadayo ilmaha la weynayo tacadiyada ilmaha loo geysanayo
ee soo badanay marka maxaa isku soo beegay wiil wal wuxuu yiri weedha waranka maxaa kulmiyay maxaa isku soo beegay adiga hadalkaaga iyo ilmaha la weynay marka bas waa kiisas asla doonasho ilaahay oo adiga ayaa magac inay kugu baxdo soo asxaabay maanta argaba ahay dhunta ka yar xiranahay mas adiga inay magac kugu baxdo ee iska qorneed hooyadan qofkii si fiican warkeeda u fahmay ama u maqlay waxay leedahay mar lacag waxay siisay 3,000 ama 1,500 siisay waxa soo lacag marka horta bixinaysa lacagaha dad hadda asaba falayaal waxaan arkay lacagaha markay bixinayaan magac soo sheego hebel lacagtan soo dirsaday qof hebel u soo dirsaday ama wuxuu yiri qof muxsin kaana soo dirsaday wuxuu dhahay qof xanuunsan qof dhibaataysan qof saan hala siiyo oo soo dhahay adigu ma jiraan dukumeenti ku qaasa oo dadka soo caawiyay sama falayaasha soo bixiyo lacagaha aad keentid aad ku soo cadeysay oo ku soo bandhigtid ama maxaa dhigi jiray lacagaha aad dadka ka soo aruurisid dadka asama falku u sameeysid waa wax cadi sir ku ah oo ku qaas ah hadday taas jirto naftirkeeda waxay ku noqon kartaa Soomaaliya hadday dadka inta aniga lacagaha aan ku baxo safarada iyo meel walba marayo dadka aan caawiyo lacagaha u soo diro ayaa lacagahooda ku darsadaa ama tooda naftirkeeda ku dhoofaa oo ku baxaa way dhici kartaa Soomaaliya in ayaga naftirkooda tii lagu soo diro samafalka naftirkeeda oo adduunka dhan ku martid ku dalxiistid ama danaha qaaska ama samafalka bas ka dhib aadid oo isu socotid marka ay taas ma jirto naftirkeeda waa cadeyn lahayd wayna jiri lahayd dadka badan aniga waxaan arkay markii qof ay samafal u sameeyaan waxay dhahaan anaga hebel lacagta soo dirsaday wuxuu dhahay qofka dhibaato hal igu diro hebel soo dirsaday wuxuu dhahay qof hebel hal igu diro ama qof ka saan hal igu diro ama masaajid hal igu diro adiga sa targetka kaliya oo ku ah caruurta maxay tahay qoys aan caruur leeyahay caawisa wali ma jiraan dhacdada kale aniga la yaabay waxay tahay oo gabadhan soo gudbisay oo la yaab istacjabka ugu noqotay oo muxshaki badan ay gelisay waa dhacdadii aaba gabadhiisa kufsaday aaba gabadhiisa xoogami ahayd wax saasa aabaha si kasto xataa uu sarqaan u yahay si kasto uu saqajaan kasto wax kasto oo xun haduu yahay waaridka cunugiisa dhalay oo xalaasho ku dhalay oo dhiigiisa dhicaan kasi wax tareen ma u gali karo diinta islaamkana saasay qabta qof walba uu ogyahay qof uu dhalay laba walaalo ah isku dareen isku qaadi karin laba is dhashan dareen isku qaadi karin ilaahay baa taas xaaraantinimeeyay say aad markuu ku tiraahdo ama ku akhrisatay ama ku rumaysatay gabarina dhahda abeey ay xoog aabaha si kasto alkulista kasto yahay ma damcigiisa dareenkiisa halkaas ma gaarsiin karo inuu gabadhiisa ama dhiigiisa iyo dhacaankiisa qof uu farxin uu ku sameeyo soo marka asxaabteeda qaaliga maalmaha waa kala mashquulnay waana caajisnaa hargab yaa iska hayay codkayga saas darteeda wuxuu ugu soo duubi waayay waxaan kaliya hadda isoo kiciyay ama inaad duuba igu qasabtay videogan maxay tahay waxaan la yaab igu noqotay hadallada soo tabatarayo oon kala go' lahayn iyo maamadaas weliba anoo ka hadli rabin waxaan arkay maamadan dhehayso gabadhan way caawisay lacag bay siisay marka maamada hadalkeeda iyo hadalka ee gabadhan sheegay waxyaabihiiba isku keensaday qof hadii la qabsado ama uu baxar ku jiro wuu dhihi karaa Soomaaliya kale badbaadi hebel oo marqaati iyo far wuu dhihi karaa maamadaas oo soo hadashay inuu xad gudbeen laakiin waxay ila tahay xaqiiqada jirto inay intaas ay ka sii fog tahay insha Allah asxaabta aad u mahadsantiin videoga ka sheegay like isaara isha shirkadda